cilla farsamo ay u timi TikTok-gaygiina saasuu hawada uga baxay oo hadda aanan awood u lahayn inaan soo galo wax ka qoro wax ka daawado live ka galo. horta qabiil sidiisaba qaran gaari waa Bilal Bulshaawi shiina marka waxaan leeyahay Bilal oo yaay iyo shiina cararay. Assalaamu alaykum saaxiibayaal meel kasta joogtaan si kastoo maqalkii muuqaalkii idin soo gaaray balka adiga daawanaysaan waa channelka Shaaca Sheekeye ولكن شاعر شاكي كسر هذا برنامج كذا انت برشده ادي كوغا هاي بوم 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 وانت صاحب انت انا برنامج كوغا قال فضل سبسكرايب صار channel كي sidoo kale لايك لا دعم مقال كان soo gaar saaxiib badan waata hadaba daawad yaal waxaan rabaa inaan hal iyo laba ka iraado ciyaar qabiiladeed oo qabiil ku dhexneed oo xalay ka dhacday barta TikTok ciyaartaasi oo u dhaxaysay laba qabiil oo runtii markii aan qiimeeyo aan dhigi karo saameyn aad u ballaaran ay baraha bulshada ku leeyihiin hadaba waxaan rabaa inaan sidoo kale muuqaalada idin soo gudbin doono aan ku bidaamiyo dhibaatada ay leedahay in macnaha dadku ay Soomaalnimo qabiilka doortaan dhibaatada ugu badan ay leedahay sidoo kale waxaan wada eegi doonaa sababtii shiina culay oo xalay leefku uga dagay ma caray ma baqay miswaal ribud gareey ayaan xoga xasaasi halkan idinku jeexjeexi doona hadii Ibraali ka noqday balse marka hore waxaan rabaa inaan ku hormaro muuqaalka shiina culay oo bilowgii ciyaartaba helay in ka badan 600 oo kun oo qofood واحد 600 oo kun oo qofood sida meesha ay jeedin ayuu shiina culay markii ciyaartu ay bilaabatay helay halka dhaga kalena Bilal Bulshaawi la tirtamayo 100 iyo xogaay helay hadaba intaasi markii dhacday kadib maxaa dhacay waxyaabaha la yaabka badnaa ee xalay ee Soomaalidu tusaysay in qabyaaladu ay ka fiican tahay minayna qaranku ka fiican yahay qabyaalada ayaan idin soo wadahay intaasi markii dhacday kadib maxaa dhacay waxa dhacday in ciyaar labaad la isla aado laakiin ciyaartii labaad uu ku gacan sarmnin leeyahay Bilal Bulshaawi oo qabiilkiisa matalayay isla markaana uu helo ilaa iyo dhar gaaraya 300 oo kun oo qofood oo helo 300 oo kun oo qofood markuu helay shiina culay maxaa ku dhacay mar quraan la waayay shiina culay buf hadaba arintaas baa dood keentay waxa la yiri war shiina culay waa cararay ciyaartii in laga badiyo ka baqayo waa cararay raganimadeedii baahay halka shiina arintaas uu ka hadlay oo yiri anigu ma cararayna waxba helay marka hore codka shiina culay oo arintaas ka hadlay la dhageysta marka wixii cilad baa timi farsamo TikTok-gaygii malaha dad badan oo walaalkii taageersanaa baa maartay maribod baa la saaray mise dhinaca shirkadda baa bacdama waxa weeye aan ku badiyay lambar xad dhaaf oo 700 oo ku gaaray oo aan horay Soomaali iyo dad kale ba ay yartahay Soomaali warkooda badaa laakiin dad kale ee xataa yartahay Carabiga inay ku kala badiyaan markay arkeen waxaan tuhmayaa qolada shirkadda laftigooda inay isiraahdeen malaha coinskii la soo iibsanayay oo lacagta badan laga bixinayay oo aan faa'iidada ku qabteen baa malaha la soo jabsaday sidaa darteed waxa igu timi cilla farsamo igu timi TikTok-gaygiina saasuu hawada uga baxay oo hadda aanan awood u lahayn inaan soo galo wax ka qoro wax ka daawado live ka galo aanan access ba u lahayn cilada farsamo igu timi cilada farsamona dhinaca u saaro ilaahay hadda waa qaadan lahay in report badan igu dhacay oo laga carooday guushii faraha badnayd ee maartay halka aan ka soo hooyay oo dadkii ay guuldarrada xamili waayeen walaalkii taageersanaa iyo inay tahay xagga shirkadda oo ay isiraahdeen malaha waa dhacantiin oo wixii baa la gacan bixiyay labada sida maqlaysi shiina culay waxa yiri waxaan kala garan lahay in TikTok-gii ay cilad iskiis igu timid oo iga shakiyeen macnaha lacag tirada badan helayo iyo in uu report iga yimid xagga dadka Bilal Bulshaawi macnaha dadkii uu ku tartamay xaggooda taageersanaa guuldarrada xanuunkeeda ka cararay horta arintaas baa waxaan rabaa inaan bidaamiyo inta macnaha social media aqoontan u leeyahay TikTok macnaha baaritaana ku sameeyay horta laba mid waa horta ma jirto TikTok meel uu kaaga shaki karo oo isdhigi karo qofkan wuxuu qaadanayaa dhibca feeg ah 600 baa ka hadlaysay 600 baa ka hadlaysay ama 700 baa ka hadlaysay Chinese dadka qaar markii tartan ka galayaan xitaa tiradooda lama akhri karo anu Soomaali baan ahay inaan wax akhrino way nagu dhib badan tahay inaan wax dhageysano wax daawana jecelnahay intaas milyan baa macnaha la isku diraystay karo oo dad badan baa ka dhargay anagu meesha ku dulmanahay runta fiican moogtahay marka horta taas xagga iska dhigaysa in macnaha TikTok oo ka shakiyay oo TikTok hawada ka saaray xagga iska geenaysa hal option baa ku soo haray
halkaas option wuxuu yahay waa haddii aadan adigu cararin. haddii aad u carartay oo jartay waa meesheeda, laakiin haddii aadan cararin hal option baad haysataa. halkaas option wuxuu yahay haddii ay dadku report gareeyeen, waa suurtagal waa dhici kartaa macnaha live adoo ku jira haddii lagu report gareeyo hawada waa ka bixi kartaa, wax xaqiiqo ah. sidoo kale haddii live kaas lagu report gareeyo ayba dhacdaba TikTok inuu hawada kaa saaro, awood uma yeelan kartid. ma aha yaa hal maalin 3 maalin ma aha, aad bay u dheertaa waliba timeka uu ku ganaaxay. waxay noqon kartaa 2 isbuuc 3 isbuuc hal bil xitaa in lagu ganaaxay. marka Shiina Coley haddii uu hal bil ka maqnaado ama muddo 2 isbuuc wax live soo gala oo meesha ugu yar 2 isbuuc wax live haduu soo gali waayo odaga caawinta la sii caawinta saara iska daay. waa loo qaateen warkaas waa macquul, waa war xaqiiqada ka agdhow way dhici kartaa. laakiin haddii ay dhacdo inuu caawa soo fadhiisto live taas ma dhici karto, macnaha xaqiiqo ma aha, oo xaqiiqada ka fog waaye. inaad dhahday live aan lagu report gareey isla markii aan soo laabtay live-ka haddii ganaax kaaga dhacdo dad baa akoonno waaweyn haystoon geli karin oo haween balcag gura karin ay ku qasbanaataa inay TikTok yar samaystaan. waxaa ka mid ah dadka arkaya gabadh Huda Amuun la yiraahdo oo si aad u isticmaasho TikTok wax badan isticmaasho, akoonkeeda in ka badan 600 oo kun qofood ku xiran live ma soo geli karto. waxyaabaha keena waxay tahay waa laga xadiday, weerka waxay ku qasbanaatay inay ciwaano kale oo yar ka isticmaasho. waa tusaale ahaan ku soo qadanaya. marka haddii ciladaas ku haleeshay xalay kaliya ama maalmaha soo socda kuma ekaan doonto waa shiri. dad badan ba marka waxaan arkay arrintan waxaan u bidaaminaa waxay tahay dad badan ba arrintan ku wareeran arkay, dad badan ba saas isku gadinaya. okay cilada Shiina heshay markaan ka soo gudbo dhalinyarta u soo noqdo. horta Soomaalidu mararka qaarna waxay wax ku bixisaa Soomaalinimo, marna waxay ku bixisaa qabyaalad. markii waxyaabaha ay Soomaali wax siin la yiraahdo anigu ma dhahayo Soomaalidu ma aha qof Soomaalinimada aan wax ku bixin, ma aha ma dhahayo. haddaad maanta qof cadaan ama qof ajnabiya aad isqabataan Soomaalidu waa gelgelinaysaa, laakiin waxay wax ka sii bixin og tahay markii baashtaan oo kale ay timaado. reer hebelo markii baashu timaado bay ka sii daran tahay. laakiin waxaa nasiib darro ah oo aan aad uga xumahay oo mar 5aad mar 6aad mar 7aad mar 8aad ku celinayaa in arrintan oo kale qabiil loo bedelo. waa aniga sida ila tahay, macnaha waa aniga sida ila tahay. idinku waad kaftamaysaan, waan hubaa maanta labadaas inoo tirtamaysa Bilaal Bulshaawi iyo Shiine qabyaaladii markii la maanta dadka isku dhaway kaftamayaan oo qoslayaan. laakiin waxaa jira dad badan oo waxa way wali qabyaalada qalbigooda ku dambaysa oo laba dhinac ka soco kara. haddan ay la hadlayo TikTok ama meelaha kale si dadku isku jaafiinaysan waa yaabaysan. qaar bay waxay soo qaadanayaan muuqaaladii waxay leeyihiin reer hebel baan nahay, hebel waa ordaaye, hebel anagu dadkan wali wadaan ku tuma jirnay. adigu waxay xasuusinayaan wax hore laga gudbay. marka horta qabiil sidiisaba qaran gaari waa. Bilaal Bulshaawi Shiina marka waxaan leeyahay Bilaal Ooyaay iyo Shiina Cararay waa sida hadda magacyada TikTok ka socdeen. waxaan leeyahay qabiil laguma helo qaran hoggaankiisa. aad u maasanta daashada muuqaalka waa shaashada kale sidaayo muuqaal dambe xiisan.